وسؤال ويدينتي أي كساب صنع نكاحة وحان نوف مرتئة الشيخ محمد السني حفظه الله تعالى أي كب شوعا su-aasha ugu horeyso ay sheekha weydiinta waxaa ka mid ah waxaan la talisa adiga mahadsan nikaaxa maxaa shardi ayaa loo xiraa shuruudihiisu waa imisa الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين والصلاة والسلام على رسول الله ولا الجواب تشروده حتى أكون صح النكاح وإن له لا قبل ولي جيدا يلا مرقاتيا يلا بالزوجان لا بقى فاضي عن زجور سنة أو كم قال لي أما كبنان وحيابها من عنا نكاح جديدة وإن له لا قول أنك ولي أولياء يحكوا جودي قبل جيدا أبو استعمالها يزوجت أو أنكحت ابنتي قبل دوليهاي وحكى الرباع وكمد شروطها إن نك زوجك أما قف كأه يعني وكيل كأه وإنه يرادا وان أقبلنا قبلنا جور كذا يمهركي أما النكاح هذا وان أقبل وإنه يرادا su-aasha kale xigta waxay tahay ninka muslimka ma guursan karaa gabar aan muslim ahayn ها جوابته waxay tahay waa ansaxaysaa ninka muslimka waxa uu banaa inuu guursado gabar muslimada ama gabar nasraaniyada ama gabar yahuudiyada laakiin kuwa cawaanta bilaadinta ma guursan karo waa inay tahay gabadha ahlul kitaab sida kristaan ama yahuud ay tahay su-aasha kale xigta waxay tahay gabadha muslimada ah iyaduna bilcagsi ma guursan kartaa qof aan muslim ahayn ama nin aan muslim ahayn jawaabta waxay tahay ma ansaxaysa gabadha muslimanta inay guursataa waxaan muslim ahayn أرنكان قفك حلاليا وحو بيلي قرآن الله سبحانه وتعالى وحونا كبحيا دينة إسلامك الله سبحانه وتعالى قرآن كيسي وحكيري حديني إما دان قبلها مؤمناتك فلا ترجعوهن إلى الكفار هاو علنا قال لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن حلال أماهن أيين حلال أماهن su-aasha ku xigtaa waxay tahay maxaa loo sardiyaa ninka weliga ah ay gabadha bixinaayo jawaabta waxay tahay waxa loo shardiyaa ninka weliga ah waa inuu nin rag yahay haddana xor yahay oo sanadoon ahayn waa inuu qaangaari oo sabiyan ahayn waa inuu islaamiya oo sangaal ahayn oo yaana ilaa gabadha nikaaxiga kitaabiga ama gabadha kitaabiga inta looma shardiyo waxa kale loo shardiyaa aqli waa inuu leeyahay waa in cadaalad waa inay ka muuqataa inkastoo cadaaladaas ishtiraad yaana khilaaf fara badan oo ka jiro aan qofkii asigoo cadaalad daro ku jiro ama macnaha nin wanaagsanayn gabadhii ma bixin karo khilaaf ayaa ka taagan su-aasha ku xigtaa waxay tahay maxaa loo shardiyaa labada markhaati ee gabadha markii la guursanayo meesha xaadiraayo waxaa loo shardiyaa labada qofood waa inay laba nin yihiin waa inay laba qofood oo xor yihiin soddoma addooman ahayn waa inay qaangaar yihiin aysan sabyaan amba caruur yar aysan ahayn waa inay caadilin yihiin waa inay islaam yihiin waa inay caqli leeyihiin waxaa kaloo loo shardiyaa inay garanayaan luuqadda nikaaxa gabadha lagu guursanayo waa inay fahmi karaan waa inay garan karaan gabadha la guursanayo إما عرفت وين وجهان وقرن كران أما مجعي مركي للشيء قرن كران أما النسب كذا كسر جدي قرن كران su-aasha kaloo karagtaa waxay tahay waxaa noo sheegtaa siiqada qaabka nikaaxa qof aan macnaha shiiq ahayn ma nikaaxin karaa ama dee qurbahoo kaleeto in dadkay joogaan nin iyo gabar haddii ay isjeclaadaan ninka weligaa uu joogo qaabkee loo nikaaxinaa siiqada ma qaab keliya u baahan tahay qofka weliga ayaa wuxuu leeyahay midka gabadha doonanayo gacanta gelina wuxuu leeyahay waxaan kuu guuriyey gabadhayda hiblaaye ah waxaan kuu guuriyey meherkeeda oo ah qadar intaas dhan doolar ah ninka doonaya gabadhanaasna wuxuu leeyahay qabiltu waan ka aqbalay inkastoo soomaalida xoogaa qabilta ay dhahaan laakiin waxa wanaagsan taada aad loo gado ama Soomaali uu ku hadlo yiraahdo waan ka aqbalay gabadhan guurkeeda meherka ku sheegtana waan ku aqbalay waa inay xaadirin yihiin laba qofood oo marqaati ah meesha ay joogaan markuu nikaaxa u dhacayo waan garan intaa waxay ahayd nikaaxii haddii aan usoo laabano reerkii markuu burburayo dalaaqa qaabkeebu ku burburaa itaa inoo saraax horta dalaaq waxaa la yiraahdaa laba nooc waaye mid waa sariix yani mid iska cad oo qofkii oo gabadha u soo qasday midna waa kinaaya yani sarbeeb oo taana u baahan tahay niyay u baahan tahay waxaan noo sheegtaa dalaaq iyo sariix iyo dalaaq tusaale ahaan naga sii mid ugu horeysa waxay tahay qofka markuu sariix gabadha u furayo rabo waan ku furay ama waa tahay saacadan laga bilaabo waa furan tahay waa dalaaq macnaha sariixa oo cad weeyaanka midka kale kinaayan waxa weeyaan qofku inuu yiraahdo zawjadiisa xaraam ay ka tahay
ama inuu yiraahdo orod guriga aabaha aad waxay u baahanaysaa markaas dalaaq ahaan oo u dhacaysaa hadduusan dalaaq ka rabin waxay noqonaysaa niyadiisa ayaa loo laabanaa markaa dhihiisa guriga aabaha aad maxaad ula jeeday jazaaka allahu khayr waxaa kaloo noo sheegtaa dalaaqa saddexda ah inkastoo xoogaa culammadu ay isku khilaafeen laakiin majlis waaxida haddii gabadh saddex lagu furo waxaa loo xisaabinayaa hal jawaabta waxay tahay ijmaac culammadoo dhan isku soo naqliyeen oo ibnu mundar soo guurinayo madhab shaafici maalik abu xaniifa wa ahmed wa ghayruhum min al-a'imma arrinkaas inay macnaha isku wada raaceen saddex qofkii ku fura oo furmaayo waayo Umar ibn Khadaab radiyallahu anhu ayaa yiri qofkii saddex ku fura waxba uma hayno ilaa ibnu taymi oo yiri qofkii saddex ku fura waxaynu ku dhisaynaa sida nabiga kaleey salaatu wasalaam asrigiisa ama zamankiisii dhacday oo ninkii saxaabiga ah haweenidii saddex ku furay kadibna rasuulku uu dhaariyo ku yiri wallahi ma aan jeedin ilaa hal mooyaane kadib sidaa lagu soo celiyay laakiin in badan dadka markay saddex leeyihiin waxay rabaan inaysan waxba reeban waana aad wax u xun qofkii saddex ku furaana gabadha way furmaysaa su-aasha ugu dambayso khayr allah ku siiyo waxaan ku leenahay zawjka iyo zawjada markay laba isku furaan ama dalaaqa isku furaan ma isla markii soo ceshanaya mase wuxuu u baahanayaa hadda kabacdi iyo qabanqaabo guur iyo caqdi cusub oo sheekh loo tago laakiin waxaa ku filan inuu yiraahdo gabadha waan soo ceshtay arja'tu zawjati ila nikahi xaaskaygu waxaan u soo ceshay nikahi haddii ay tagtaa ciddadii yani waqtiga uu dhamaada ciddada ah oo gabadha qaar bilooyin ku tirsadaan qaar shuhur bilay macnaha waxay ku tirsadaan dhiig ku tirsadaan way kala duwan yihiin qaar ma walahan caado laakiin bilaa ay ku tirsanaysaa qaar saas oo kale uur ay leedahay ilaa uurkii ka dajiso intay macnaha uu ku jirto ciddadiisa wuxuu dhihi karaa raja'tu mana u baahna ayada ogolaansheeda iyo waalidkeeda ogolaansheeda wuxuu asigu laba marqaatay oo qabsanayaa wuxuu u sheegay gabadhaas inay xaaskiisa tahay haddii laakiin uu dhamaado waqtigii wuxuu u baahan yahay inuu caqdi cusub iyo hadda ka bacdi oday iyo qabanqaabo uu raadiyo